السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan wararka shacabka YouTube kaniguna waa Abduqaadir Xasan Aduuliye. Isaarak wanaagsan maanta muuqaalka waxa uu hadli doonaa haddii interview intaad gashay negative lagu siiyay oo sharci lagu diiday. Haddaba go'aanka xiga ee aad qaadanaysid maxaa uu yahay halkee ayaad wax ka bilaabaysaa. Muuqaalka ayaan ku wada wadaagayaa. Haddaba muuqaalkan waa ku muhiim haddii aad iminka wadankan ku cusub tahay ama aad doonaysid inaad Jarmalka hadda kadib aad timaadid. Haddii ay tahay markii kugu horeysay ee barteeda horyaalka shacabka YouTube aad soo booqato waxaan ka codsanayaa inaad subscribe-ka inoo taabatid sidoo kale like-ta waa inoo muhiim. Haddaba haddii aad fikir ama talo aad haysid sidoo kale haddii ay jirto arrimo kula soo gudboonaaday oo aad jeclaan lahayd asxaabta barta horyaalka shacabka YouTube-ka ku xiran inaad la wadaagtid waxaad fariintaada igu soo qori kartaa barta Instagram-ka oo ah Abduqaadir/Duuliye. haddii negative lagu siiyo oo sharci lagu diido ilaahayba kama dhigee maxaa uu yahay go'aanka labaad ee aad qaadanaysid. go'aankan waxaad ka qaadan kartaa dacwad ama ambiil muddo 2 toddobaad gudahood ah laga bilaabo markii lagu soo gudbiyo qoraalkan. waxaad u dacwoon kartaa maxkamadda maamulka ciwaankeedu halkan hoose ku qoran yahay. haddii markaasi negative lagu siiyo oo aad warqadda xilligaasi ku soo dhacdo boosada aad ka soo bixiso oo akhrisid waxaad haysataa muddo 2 toddobaad ah ama 2 isbuuc. markaas oo aad muddadaasi gudaheeda aad ku qaadan kartid ambiil waa inaad hubsataa in uusan ka dhicin waqtiga lagu qabtay. waxaa tirada laga bilaabayaa maalinta dacwadaadu soo gaadho maxkamadda maamulka. dacwada ama ambiilka waa inay tilmaamaysaa qofka dacwoonayo iyo cidda uu ka dacwoonayo. iyo sidoo kale dacwada waa inaad ku aadinaysaa oo aad ku hagaajisataa dowladda Jarmalka oo matalayo wasiirka arrimaha dakhliga oo isaguna uu matalayo gudoomiyaha hay'adda qaabilsan qaxootiga. waana dacwadaasi ama ambiilkaasi uu lahaadaa codsi macnaysan ogeysiiska xuquuqda habraaca difaaca iyo ka qaybgalka. waxaad raacfaan ka qaadan kartaa isbedel kasta oo dhacaya laga soo bilaabo markii ay soo baxday digniinta ah in lagu tarxiili karo kaasi oo saameyn weyn ku yeelan karta qiimeynta xaaladaada marka laga eegayo amarka dib u celinta ee 2017/115 iyo gaar ahaan farqadiisa sanaad. tusaale xiriirkaaga qoyska ama xaaladaada caafimaad. si la mid ah taasi waxaad aas-aasiyaad u leedahay xuquuqda aad ka helayso amarka xaaladda soo dhaweynta 2013/33. tusaale ahaan faa'iidooyinka alaabaha daryeelka caafimaad. arrintani ayaa sidoo kale ku jirta marka aad raacfaan qaadatid ilaa uu ka dhacayo waqtiga loo cayimay celitaankaaga sida ku cad farqada 15 ee amarka celinta 2008/115 laguna xiri karo sabab tarxiil awgeed. aad fahanteen ayaan u maleynayaa warqadan oo ka soo baxday dowladdu ay leedahay kii negative-ka lagu siiyo oo warqada lagu soo diro oo codsigaagii qaxootinimada lagu diiday waxaa lagaaga baahan yahay 2 isbuuc gudahooda inaad ambiil ku qaadatid. ambiilkaasi waxa ku qaadaya lawyer-ka ambiilka markuu ku qaado lawyer-ku wuxuu fiirinayaa interview-gaaga iyo wixii ka qaldan. marka dowladdu waxay soo saari kartaa 2 go'aan. mid waa in aad interview kala gashaa oo sidaasi mar kale markaa interview cusub aad ku gashaa oo dacwadaada loo dhageystaa. haddii markaas kale ama negative lagu siiyo ama sharci lagu siiyo waa gaar. arrinka labaadna waxa uu yahay waxa laga yaabaa in sidaasi sharci lagu siiyo oo warbixintii aad lawyer-kaaga u dhiibtay intuu qaado asna maxkamadda ula tagay sidaas darteed aadan interview u gelin laakiin sharci lagu siiyo. marka labadaas go'aanba dowladda iyada ka go'da. marka sidaas u ogow. haddaba muuqaalkan uga hadlayay haddii negative lagu siiyo oo sharci lagu diido go'aanka labaad ee aad qaadanaysid maxaa uu yahay. muuqaalkayga intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. intaan muuqaalka ku kulmi doono waxaad ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.